وطاي راديو هي تلفزيون كوبجوج يا نقل سعوتان داوديال إيه دقيستيال مركنا وحن إيجنا حالات السياسية جودان دالك يضو وقتها مدحونها حدا طلبة هاي وجوابسي وياه إسلام مركنا لسكو هايو دور الشدة دالك سيد يقولوا على هاد كارهان إن دور الشدة إنه قطع مد وضع أقرأ أو نبتقليه أي كل عضو حتى حالات جود دالك يوليبا halka dalka loo jeeynayaba waxa la falanqeyn doona ambassador maxamed nuur caalim oo ka faalooda arrimaha siyaasadda guud ahaan dalka marka hore caalim waxaad ku soo dhawaataa goobjoog waa ku dhawaaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu dhammaan farsamaqaanada iyo wariyaasha goobjoog horeen Soomaaliya xilligan ma ka dhici kartaa doorasho nabad ah maadaama ay doorashooyinku iska adag yihiin dalka Soomaaliya doorashada xilligan ka dhacaysa waxay ku xiran tahay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu isagu ogaado inuu dastuuri yahay doorashaduna ay tahay waajibaadkiisii mid ka mid ah musharaxnimada xilligu ahaa ballanqaadyadu qaaday marka doorasho nabad waxay ka dhici kartaa markuu madaxweynuhu uu dhexdhexaad ka noqdo processka doorashada hadduu hal dhinac u bato waddanku way adkaanaysaa in doorasho nabada ka dhacdo in doorasho cadaalada ka dhacdo in doorasho mataqaanaa dadku ku qanacsan maadaama waxa la aadaeyeen doorasho dadban oo qaab qabiil ku dhisan dhinaca kale waxa aad u soo ifbaxaya khilaafaadka ku saabsan xildhibaanada ka imaanaya gobolada waqooyi sidee loo xalin karaa khilaafka xildhibaanada goboladaas ka imaanaya maadaama laba doorasho hore loo soo arkay doorashadii Shariif Sheekh Axmed soo diyaariyay iyo tii Xasan Sheekh soo diyaariyay xildhibaanada gobolada waqooyi waxay ka jiraan beesha direed waxay ahayd in iyaga loo daayo gudoomiyaha aqalka sarena waa xubinta ugu sareysa ee beesha direed maadaama xilalka qaabka loo qabsaday ay yihiin qaab xeer hoosaad ah oo aan dastuur ku qornayn in gudoomiyaha Cabdi Xaashi looga dambeeyo arrimaha beesha maadaama xilka ugu sareeyo uu hayo khilaafaadka jirana waa khilaafaadkii ka soo bilaamay meelahooda beelahooda Jubbaland buu ka dhacay Hirshabelle buu ka dhacay galmudug buu ka dhacay koonfur galbeed buu ka dhacay marka khilaafaadkaas waa khilaafka Soomaalida u dhaxeeya khilaafaadka sida tooska ah Cabdi Xaashi oo golaha aqal sharci jidda ku jira gooni loogu saarayo oo la leeyahay mas'uul kabatid xil sare ma haysid gudoomiye aqalka sare ma tihid arrimahaas waxay keenayaan in ay muuqanayaan in beeshaasi dadban doorashooyinka ama heshiiska ka socda hadda Dhuusamareeb in laga saaray taasna carqalad bay ka mid tahay ah procedure doorashada ama signalka doorashada inay qatar gelin karto khilaafka beesha direed dhinaca kale isla guddiga daftarkiisa waa la isku haystaayo dhibaato baa ka taagan guddiga doorashada dadban sidee uu u noqon karaa mid lagu wada heshiiyo guddiga doorashada dadban qaabna dawladuna waxa la siiyay roadmap inkastoo reer wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ahaa isagu inuu la wareego guddiyada doorashada heer maamul goboleed iyo heer federaal una fiirsho dheelitirka inta ay maamul goboleedku magacaabi karaan inta dawladda federaalku magacaabayso meelaha ay ka imanayaan ururada bulshada culumada bacda saxaafadda hadda waa la siyaasadeeyay guddiga doorashadana waxay hoos keenay hay'adda NISA marka arrintaas ayaa qatarteeda iska leh dhammaan marka liiska guddiga doorashada ay fiirsid dadbanna waa dhalinyaro wada cusub oo siyaasadda ku cusub oo mataqaanaa aan mas'uuliyadda guddiga doorashada adduunka oo dhan commissionka ama guddiga doorashooyinka badana waxaa laga dhigaa dad khibrad dheer u leh khilaafyada bulshada dhex yaala marka guddiga waxaa lagu sixi karaa iyadoo siyaasad laga saaro hay'adda NISA laga saaro shaqaalaha dawladda laga saaro xafiiska prime ministerka lagu soo celiyo awoodda prime ministerka la siiyo qaabkaas lagu sixi karaa iyadoo beeruhu ay ogaadaan dadka doorasho beeleed weeye doorasho galaadaya dad ay ku kalsoon yihiin heer maamul goboleed iyo heer federaalba waxaan eegaynaa maxaa keenay aqalka sare in lagu daro 13 xubnood iyadoo kan golaha shacabka aan la siin ama aan waxba lagu darin iyadoo aan cadeyn maqaamka caasimadda waxaan ognahay in aqalka sare maamul goboleedyada ay matalaan in mataqaanaa waa waxa dadka oo dhan heer sharcina aqalka sare in kuraas lagu kordhiyo iyadoo gobolka Banaadir maqaamkeedu aanu dhisnayn golaha xildhibaanada caadiga ah ee 61 beelo qaybsadeen iyo beesha sharaadna aan lagu soo darin waxa loo arkaa arrin siyaasadeed waana arrin carqalad kale u ah doorashooyinka marka waxa fiican maadaama baarlamaanka hadda jira uu dhammaan
dib u eegis dastuurka loo raray baarlamaanka koob tobnaad in wixii maqaamka gobolka banaadirna in loo raro baarlamaanka koob tobnaad ayaa fiican oo hadda aanay doorashada u noqon caqabad maadaama uu dhicis yahay 13 kursi oo dhicis ku yahay sharciga lagu dooran lahaa qaabkii lagu dooran lahaa qabaa'ilada soo qaybsan lahaayeen iyo maamul goboleedkii soo dooran lahaa marka intuba mataqaana waxay ka soo horjeedaan dhaqanka doorasho ee labadii hore la soo maray marka anigu waxaan noo muuqataa dadkeena arrimaha su'aal ka falaqooday iyo anigaba in sidii madaxweynuhu uu dib u eegis dastuurka uu dib ugu raray doorashada hal qof iyo hal cod dib loogu dhigay in aqalka sare kuraastooda dib loo dhigaa fiican si aan khilaafka aanay doorashada caqabad ugu noqon waxa weeye qalalaasa siyaasadeed iyo beelaha waxan waa beelo marka hadda kuraasta yaa qaadanaya beeshay qaadanaya 13 kursi xamar 3 xamar baa naqaana xamar dayniile xamar jasiiro xamar weyne iyo xamar kaaraan marka xamartay qaadanaysa doorka beesha caalamka ee dib u heshiisiinta Soomaaliya doorka beesha caalamka ee dib beesha caalamka saaxiibada islaamka ama beesha caalamka ee inta reer galbeedka ama inta qaramada midoobay ama African Union ama IGAD Soomaaliya wax badan bay ka qabteen Soomaaliya hadda maamulada ka jira airportka dekada madaxtooyada lacagaha lagu kaba cadaaladda dibdhiska dhilka lacagaha mushaarka xildhibaanada la siiyo dhammaan beesha caalamka ayaa bixida marka beesha caalamka doorkeedu waa door muhiim ah ee beesha caalamka wax qasbida kuma laha dadka Soomaaliyeed inay dastuur samaystaan inay heshiiyaan inay ciidan dhistaan inay caafad hagaajiyaan marka doorka beesha caalamka ee ah in Soomaaliya la gargaaro dhinac kasta laga gargaaro waxa ka dareemaysaa 10kii sano ugu dambeeyay ilaa 2010 ilaa hadda horumarka laga gaaray adeegyada bulshada gaar ahaan shaqaynta airboardada golayaasha sharci dejinta madaxtooyada iyo dhammaan hay'adaha kale la soo dhisayo waya madaxweyne Farmaajo muxuu ka bartay ama uu kala kulmay 4 sano ee la soo dhaafay maadaama toddobaadka dambe waqtigiisu uu dhamaanayo madaxweyne Farmaajo isagoo wuxuu soo galay popular waxa la yiraahdo madaxweynaha shacabka ballanqaadyo badan buu sameeyay 4 sano wuxuu ka baranayaa in ballanqaadyadii uu sameeyay ay ahayd abuurista shaqada duwahabeenta ciidanka duwahabeenta cadaaladda duwahabeenta dib u heshiisiinta duwahabeenta ciidamada dibdhiska ciidanka inuu intiiba mataqaana aanu waxba ka qaban carqaladaha uu ka tagayna ay qatar ku yihiin haddii isaga la doorto iyo haddii qofka la doortaba carqalad adag bay ku tahay maxaa dhacay dilaaca siyaasadeed ee Jubbaland soo galay dilaaca siyaasadeed Hirshabelle soo galay dilaaca siyaasadeed ee xildhibaanada iyo dib u heshiisiinta gobolada waqooyi soo galay ama Soomaaliya dilaaca siyaasadeed ee siyaasadda arrimaha dibadda soo gashay ee jaamacadda carabta ama African Union waxa weeye madaxweyne Farmaajo waxa la oran karaa dilaacyo badan buu ka tagayaa hadduu joogiyo hadduu xafiiska baneeyaba marka arrintaas waxay nagu qaadanaysaa in la saxo madaxweynayaasha iman doona ama qofka iman doona ama isagaba muddooyin bay nagu qaadanaysaa haddaanu aan loo helin tanasul siyaasadeed aanu qiran khaladaadka siyaasadeed uu galay haddaanu qiran dalka Soomaaliya marxaladii 2016 maanta ayuu ka qatar badan yahay ama heer caalami ha noqoto ama heer dagaal al-shabaab ha noqoto ama heer dhaqaale ha noqoto ama heer doorasho ha noqoto ama heer siyaasad ha noqoto meel kasta khilaaf baa ku jira waya suurtagal ma tahay xilligan in waqti kale baarlamaanka uu ugu daro madaxweynaha maalmaha waqtigiisu ay ka harsan yihiin waa maadaama kaaran loo sameeyay suurtagal marna ma aha processka xukuumadda ayaa xaq u leh in maalmo loogu daro bilo loogu daro wax loogu daro xukuumadda reer wasaare maxamed xuseen rooble xaq bay u leedahay maadaama iyadu ay ka dhexdhexaad ka tahay doorashooyinka madaxweynuhu ilaa hadda musharax kuma dhawaaqin baarlamaankuna musharaxiin 8 sano ma aha marka labada gole ama ha noqoto golaha sharci dejinta ama madaxtooye ha noqoto suurtagalna ma aha innaba in xil loogu daro haddii loogu darana waxay astaan u noqonaysaa burburka iyo qalalaasaha Soomaaliya gabagabadii shirka Dhuusamareeb maxaa is leedahay waa laga filan karayaa xal ma u noqon karaa xaaladda cakaran dalka xilligan uu ku jiro waxa weeye kulley shirka hadda Dhuusamareeb ka socda ama shirarkii dhacay ama xilka musharaxiinta xilka madaxweyne odayaasha bulshada wax walba oo dhinaca wanaagsan loo eega xal siyaasadeed bay noqonaysaa
gaar ahaan qodobka ugu muhiimsan waxa weeye dal kastana hay-adda ugu sareysa ama madaxweynaha oo ah guddoomiyaha siyaasadda arrimaha dibadda taliyaha ciidanka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayuu waddankan mustaqbalkiisu ku xiran yahay haddaanu riyada uu ku jiro oo ah inuu xilka ku darsado ama uu is yiraahdo waddanka aday kuu baahan yihiin ama uu is yiraahdo waddanka wax baad ka qabatay intaba may dhicin marka isaga ayay ku xiran tahay inuu ka tanaasulo wax kastoo hami siyaasadoo ku jira uu ogaado shacabka soomaaliya ilaa hadda qabyaalad bay taagan yihiin qabiil bay wax ku dooranayaan in iyaga faraha looga qaado doorashooyinkooda iyo waxay doonayaan ambasador aad baad u mahadsan tahay mahadsantihiin waxa uu ahaa ambasador maxamed nuur caalim oo qadka igu waramayay isagoo ku sugan magaalada helsinki ee dalkaasi finland oo ila falanqeynayay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan ee doorashooyinka in si nabadgelyo ah ay ku dhici karaan iyo in kale umayma